saaka halkan waxaan u imiyay inaan shaaciyo oo ku dhawaaqo inaan ahay musharax. hadalladan aad maqlaysaan waa qayb ka mid ah kulan warbaahineed oo Hargeysa ku qabtay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Xaaji Cali oo si rasmi ah u shaaciyay inuu ka qayb geli doono tartanka loo geli doono gudoomiyenimada xisbigaasi. saaka halkan waxaan u imiyay inaan shaaciyo oo ku dhawaaqo inaan ahay musharax gudoomiyaha xisbiga wadani ee shirka fooda inagu soo haya 15 iyo 16 waan u taaganahay hadday ii gartaan xisbigu inaan hogaamiyo oo noqdo gudoomiyaha xisbiga ayaan saaka u taaganahay. gudoomiye Xirsi hadalkiisa si wata ayaa sababeeyay sababaha uu ku doorbidayo inuu u tartamo gudoomiyenimada xisbigaasi waxaanu soo bandhigay dhowr qodob oo uu sheegay inay u saamixi doonto inuu ku guuleysto tartankaasi. taa shaacinteeda waxay ugu kalifay runtii inaan isleeyahay waa waqtigii loo baahnaa inaad timaado aqoonteedii waad leedahay khibradeedii waad leedahay ma ihi qofka ugu aan leeyahay ugu mudan yahay laakiinse waxaan isleeyahay waad ugu haboon tahay waqtigan oo aad ka saari karto kaalintu ku jiro aad gaarsiin karto xisbiga kaalin sare gaarsiin karto waxaanay tahay sababta aan u doonayay aan u weydiisanayo waxa weeye xisbiga wadani bahweynta wadani inay ii doortaan sababtii ujeedadu waxay tahay inaan haddii Allah wadda ogolaado xisbiga guul gaarsiiyo oo ku guuleysto insha Allah taala doorashada oo ku guuleysto dawladnimada ayaan insha Allah taala doonayaa. marka labaad waxaan ku tala galsanahay inaan xisbiga horumariyo halku joogo hore uga qaado dhismihiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaato gaarsiiyo isagana insha Allah taala hay'ad dawladeed oo kamid ah qaranka inaan dhismihiisa iyo horumarintiisa isagana ka qayb qaato oo aan isleeyahay waxbaad ku biirin kartaa halkii la keenay ee muddada la soo waday waad ka sii qaadi kartaa. marka saddexaad waxaan isu diyaarinayaa insha Allah taala aan isleeyahay waxaad buuxin kartaa kaalinta shakhsi ahaan iyo xisbi ahaanba qaranka uga bannaan ama looga baahan yahay inaad buuxiso kaalintaas oo ah wixii qaran ahaan looga baahan yahay xisbiga wadani inaan kaalinteeda buuxin karo waajibkeedana gudan karo. saddexdaas sababood kadib haddii aan dib u raaco maalintan xisbiga ku soo biiray ee aan la wadaagnay inaanu tala wadaagno oo aan aniga iyo rag kale oo saaxiib aanu ahayn iyo gabdhaba ahayn waxaanu heshiis xilligaa ku qaadanay 14 qodob oo ahaa inaanu xisbiga yacni soo galo asbaabihii aanu u cuskanaynay oo ahaa doonitaankii iyo rabitaankii annaga iyo bulshada reer Soomaaliland ba wixii aanu markaa matalaynay aanu u fahanay in loo baahan yahay. qodobadaas ma ahayn qodobo hunguriyo xil oo ma ahayn maanta inaan xil soo doonto oo aan xil ku doonay qodobada ama aanu ku doonanay tiimahan laakiinse waxaan qodobo qaran oo xisbiga iyo horumarkiisa iyo qaranka iyo horumarkiisa iyo isku duubnida reer Soomaaliland iyo gaarista himlada reer Soomaaliland koobsanaya bay ahaayeen. kuwa noocaasa waxaan isleeyahay wax ka midana waan xaqiijinay wax ka midana insha Allah taala waan xaqiijin doonaa. qodobadii nooca ahaa anigoo ka duulaya ayaan leeyahay maantana qodobada uu qaranku nooga baahan yahay baan insha Allah taala kaalinteeda inay isu taagi doonaa. waxaananu insha Allah taala ku dadaali doonaa xisbi ahaan waxaanu ku dadaali doonaa inaanu xanano talada dalka halkay maanta joogtana meel ka fiican gaarsiino biidnillaahi taala. waxaanu wadnaayo musharax waa labada musharax ee horeba loogu dhawaaqay kuwaasaan dhisaya kuwaasaan garab taaganahay kuwaasaan gaarsiinaya haddii ilaahay nafta ii daayo guusha haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala u qoray. waxaan leeyahay marka dhammaantiin taan maanta shaacinayo ee aan halka u imi waa taasaan isu soo taagay aad baan u mahadsantihiin. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan inuu yahay mas'uulkii labaad ee si rasmi ah u shaaciya inuu tartan u geli doono jagada gudoomiyenimada ee xisbiga mucaaradka wadani waxaana hore u shaaciyay gudoomiyaha xisbigaasi oo sheegay inuu mar kale u tartami doono jagada gudoomiyenimo. waxaana xusid mudan inaan la ogeyn in mas'uuliyiin kale shaacin doonaan hankooda musharaxnimo iyo in kale intaan la gaadhin shirweynaha xisbigaasi oo dhawaan qabsoomi doona. وخضر إسماعيل محمد خضر دمال يا عبد الغني بوسكا ورركي مقبهية عالم جيسم نيوز هرجيسة.